Dr. Cabdullaahi Cali waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Qaybo ka mid ah noloshiisa waxa uu ku qaatay magaalada Kismaayo, halka qayb kalena uu ku qaatay magaalada Fafaxdhuun ee gobolka Gedo. Kadib waxa uu soo maray Meyiga oo ugu dambeyn ka soo galay xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Kadib waxa uu degay magaalada Nairobi si uu sii horumariyo waxbarashadiisa, isagoo halkaasi uga sii wareegay cariga Mareykanka, gaar ahaan gobolka Maine oo muddo 15 sano ku noolaa. dhanka waxbarashada waxa uu shahaadada koobaad ee jaamacadda ka bilaabay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Kadib waxa uu ka dhameystiray heerka koobaad ee jaamacadda waddanka Mareykanka, isagoo qaatay shahaadada Social Science iyo Economics waa culunta bulshooyinka iyo dhaqaalaha. Dr. Cabdullaahi waxa uu waxbarashadiisa heerka masterka ka bilaabay jaamacad ku taala dalka Mareykanka ee koonfurta New Hampshire, Southern New Hampshire University, waxaana uu ku bartay culunta cadaaladda ama Justice Studies oo takhasuskiisa uu ahaa waxa la yiraahdo maamulka guud, oo si qaas ah u kulminayo wada shaqaynta saddexda hay'adood ee dowladda waa fulinta, garsoorka iyo sharci dejinta ama Executive, Judiciary iyo Legislature. Intaasi kadib Dr. Cabdullaahi waxa uu jaamacadda Southern Maine ku taalo Mareykanka, gaar ahaan magaalada Portland, uu ku qaatay PhD-ga oo takhasuskiisu yahay Public Policy. Dr. Cabdullaahi waxa uu leeyahay khibrad shaqo oo muddo 24 sano ku dhow, waxaana uu ka soo shaqeeyay xeryaha qaxootiga isagoo muddo u soo shaqeeyay hay'adaha ka howlgala qaxootiga. Intii uu joogay Nairobi waxa uu soo shaqeeyay hay'ad samafal oo u xilsaaraneed wadamada Soomaaliya iyo Suudaan. Dr. Cabdullaahi Cali markii uu wareegay Mareykanka waxa uu ka shaqeeyay howlo samafal oo kala duwan. Sanadkii 2015 ayuu asaasay hay'ad lagu magacaabo Gateway Community Services oo ka shaqeynaysa howlaha samafalka, adeegyo kala duwan siisa dadyowga soo galootiga ah iyo kuwa waddanka u dhashay. Dr. Cabdullaahi Cali ayaa sanadkii 2019 ka mid noqday 50 qof ee ugu saameynta badan gobolka Maine ee Mareykanka, kadib adeegyo wanaagsan oo ay hay'adda Gateway ay ka fulisay gobolkaasi. Kadib markii uu socdaal ku yimid Geeska Afrika ayuu Dr. Cabdullaahi aasaasay hay'ad lagu magacaabo Nature All Africa si ay ugu adeegto bulshooyinka gobolka. Sanadkii 2021 waxa uu Dr. Cabdullaahi Cali ku guuleystay abaalmarinta loo yaqaano Metamorphosis for Visionary Leadership ee la siiyo dadka gobolka Maine ku soo kordhiyay hoggaan aragti dheer leh. Sanadkii 2022 Dr. Cabdullaahi waxa uu mar kale ku guuleystay abaalmarinta loo yaqaano Black Excellence Award ee la siiyo dadka madow ee la yimid hoggaan wax ku ool leh una doodo xuquuqda dadka madowga ee Mareykanka ku nool. Dr. Cabdullaahi Cali marka laga yimaado howlahaasi waa ganacsade maamulo ganacsiyo kala duwan oo gaar ah. Sidoo kale Dr. Cabdullaahi waxa uu hormuud ka ahaa aasaaska xisbi siyaasadeedka Soomaaliyeed ee TUSMO oo ka dhigan Thriving and United Somalia Moving Onward. Dr. Cabdullaahi Cali waxa uu muuqda aqoonyahan oo ay ka go'an tahay wax ka beddelka nolosha dadyowga uu la nool yahay ee cariga Mareykanka iyo bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtaba.